السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض داودياشنا qiimaha iyo qadarinta inaga mudano halka aad inagala socotaan waa Rohal Official channelka cusub ee dhanka YouTube-ka. Daawadayaasheenu mar walba sida aan barnaamijkii hore aan sameynay hordhaca ahaa aan ku sheegnay waxay inaga sugayeen barnaamijyo aad u xiiso badan walow barnaamijkan uu noqon doono barnaamijkii koobaad oo noqon doono barnaamijyo taxana oo halkan ka bixi doona. maanta halkan waxaa marti iigu ah abwaan Faarax Carab Qays oo garabkayga midig fadhiya. waa abwaan waa majaajilaysti waa qosliya magaalada Kismaayo aan dhihi karo caan buu ka wadayahay haddaysan Soomaali ahayn. abwaan Faarax bal ku soo dhawow Rohal Official. aad iyo aad baa u mahadsan tahay saaxiibkayow maanta inaan halkan igu casuuntana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan salaamayaa dhalinyarada iyo asxaabta Soomaaliyeed dunida dacaladeeda meel kastoo ay ka joogaan. maadaama aad maanta inta martigelisay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waana ku mahadcelinayaa boqolkiiba boqol. إن شاء الله أصحابنا وحن دريمينا وحن دريمي هدي الله يدمي إن أيجنا برانسيح يسجل أو فرحت جلي أيجنا لا تركض إن أصاب بندقه هدي إلهي يدمو هذا والتنواتيكو بعد ذي بقى سنت لكن سو حين قندون تا كل مدة إن الله بعد يصح صدحات يتحنا بينا مكسر جنما هدي الله يدمو متكين الله بعد متكين صدحاتنا إن مقرن يسكوا أدي أقيم بدن dhalinyarada iyo asxaabtana qanciyo insha Allah inay yihiin baan rajeynayna. abwaan markii aan dhalinyarada reer Kismaayo u sheegay in YouTube cusub oo reer Kismaayoodka ay leeyihiin aan furnay waxaan dhihi karaa YouTube-kan reer Kismaayoodka iska leh si gaar ah leh walow Soomaaliya oo dhan ka wada dhaxeeyo inta badan waxay isku raaceen warbal barnaamijkaas markaa bilaawaysid abwaan Faarax in noogu bilow aad iyo aad ayagoo tixgelinaya ogna barnaamijyada aad sameeyso quruxdooda. bal waayahay Faaraxow asxaabtana daawanayaan hadal ku daalne bal idii kala baxo asxaabto hal kamida sheekooyinkaaga aad iiga sheekayso aadka u qosolka badan oo kugu dhacayo true story-ga bal hal inooga soo qabo. horta niyahow aad iyo aad baa u mahadsan tahay. sheekooyinka igu dhacay sheekooyin badan baan kaaga sheekeeyay. sheekooyin xiiso badanna way jiraan oo ma garanaysaa markii aan kaaga sheekeeyay laakiin haddii aada aan hal ama laba ka soo qabsado sheekadii waxaa kamid ahayd badda waagi aan galnay oo badda aan aadnay oo aan shaqada u aadnay jasiiradaha taasoo kale taa kamid ahayd. midaasna waxaan sameynay waxaan ka tagnay Kismaayo ka tagnay meel la yiraahdo jaamaca raalaan tagnay. jaamaca raalaan markaan tagnay hameenkii aan joogno hameenkii baan joognay adigu galab casar oo kale taan carrownay hameenkii kale waxaan tagnay jaamaca raale hameenkii oo dhan baan joognay adiga subaxii waa noo bariyay casarkii dambeeto ayaa waxaa timid doontii aan raaci lahayn oo meesha jasiiradda aan ku tagi lahayn. jaamaca raale marka lagama helo biyo lagama helo macaan dadka qubaysi wax isla meel waa biyihii badda waayo bis wax yar yar oo ma garanaysa baabuurta lagu geeyo ama doonahaas ay keenaan oo doomaha lagu saqayo bis laga isticmaalaa oo cabitaanka bis aan ka badnayn wax ma cuntada lagu karsanayo. dadkeena Soomaaliyeed waad aragtay oo malahan alaaba badda biyo macaan baa laga dhaliyaa oo waad aragtay caalamka sidiisa kaleeto horumarkaas weli ma naageerin marka insha Allah waan gaari doonaa iyadana. marka waxa dhacday galabkii casarkii marka waxaan isku reebnay doontii waxa la yiri ma imaanayaan biyihii waxa sameeysan riixa doonta oo waxaad geysaan biyaha dhexdooda si ay motorka lagu kacsho meeshaas xogaa biyaha naga fogaadin doontii marka waxaan ku riixnay meeshii biyaha dhexdooda ma garanaysaa ay joogtay yaanaw ku riixnay marka dad kale way yaqaaneen dharkii bay la laabteen halkaan ay geysteen buumayaalna way isku reebeen aniga waxaan isku reebay marka buumana waa iyo waxaan qabay garantaydii markaan doontii wax ka riixay badiyaan hore u sii galay waa ku sii dabaashay biyo lagu qoysto meesha lagama helo dadka markii bay fulfuleen doontii waxay dhaheen ana dabaalan sii galay doontii xaggaas xoogaa yar dabaashay dabaal aad u dheerna maana aqoonin xoogaa yar marka adigu maaragtay meesha xeebta iyo dawaasga garanaysaa asxaab isku meel ku soo kordhay baan ahayn xeebta iyo meelaas waan ku dabaalan jiray oo xeebta iska joogjoogay marka meel koreeto oo dheer maana aadi jirin marka xoogaagii baan intaan ku dabaashay baan doontii haddana hore ka fuulay adigu ka bacdi waxaa dhacday doontii saan u saarnay badii baan galnay way tagtay doontii say u socotay ku socoteen markii doonta xagee ku socotay waxay ku socotaa Kudhaa iyo Buurgaabe iyo halkaas ku socotaa oo jasiiradaha deegaanada Jubbada Hoose magaalada Kismaayo hoos yimaada waa garta ku socotay halkaas ku socotay markaas waxaan sameynay haddaan soconay hameen markii meel la maraayo yaa waxa qabatay kaadi waa soo istaagay waxaan irnay how
kii naaquudaha doonta waxaan dhahay naaqood marka cabaar isku celin waay yaana meesha u soconno ma la gaaray xagee ku kaajaabane markaasuu yiri inta soo istaagtay soo ma dhidbiyo halkan oo meeshaan fariisatid buu yiri waxaa samaysaa buu yiri lagu halka inta ka laalaasay halka ka kaadi gabdha waa doonta dhexdeedii laakiinse meesha gadaalo oo garanaysaa naaquudaha gadaalkiisa halkaas weeyaan markaas waxaan ku irniyahow gabdhaha marka gabdhihii baa marka waxaa naaquudaha xaggiisa waad aragtay doonta marka la raacayo naaquudaha xaggiisa waxaa la xijiyaa gabdhaha la xijiyaa hadday dhacaan oo kale waa nin dabaal yaqaan moogta dad kale bulshada kale lagu maal soo dhaqso u soo badbaadiyo dumarna weeyaan meeshii marka gabdho marka laba gabdhood baan saan oo kaleeto waa meesha waa meel cariiriya doona waa iska garanaysa waana dooma yarka laashashka gabar baan saan oo kaleeto dhabarka ugu qabta laba gabdhood waliba gabar ma ahayn midna intuu kale iga xigtaa midna intuu kaleeto cabaar haddaan joogay kaadidii waan iska waayo marka kaadidii ugu weysay maba ihiba cabaar markaan joogay oo gabdhihii waa ka xishootay waaba xishoodba dabcan saasaan is leeyahay markii anigu waxaan lahaa dee nin abwaanaa tahay oo dhalinyaro iyo bulsho iyo dad badan baan wax kasoo horjeedin jiray oo asxaabta dee wax badan baanu la qaybsan jiray mana ka xishoon jirin hadda cabsi ima geli jirin laakiin iska tuuraan lahaa kaadidii oo dhan baa iska waay adigu cabaar haddaan fadhiya hal saac oo kaleeto camal oo kaleeto ayaa markii dambe kaadida iga imaatay anoo roon oo markaas iri aad kacdid oo tagtid marka biyihii badda gacanta darsan ka dhaa marka jaqaf yaroo doontaan darsaday jaqafkii baan ku isjooday waa soo bax markaasaan wuxuu sameeyey mid baa marka ii imaaday marka kaleeto markaasuu yiri saaxiibo doonta saarnaa dadkii shacabka ahaa oo markii aan isgaranay wejigaa isgaranay markaasuu yiri saaxiibo ha iga tegin buu dhahno meeshaada fadhi waa xishoonaya macnaa meesha inaan ka kaajaan rabaa meeshu marka asagana ka dhiibay meeshu markuu ka dhiibay yaa kaadidii baa ka imaan weyday marka sideedii oo kaleeto nin horey doon u raacayna maahay intuu iisoo dhaweeyey dhegtuu yiri faaraxa u saneeye nin wuxuu yiri waxaa igu dhegan buyo kaadida igu dhegan kula dhakhtar degdeg aan u baahana marka waxaan irniyow dhakhtar uma baahnidi marka hore tabaanay la turkay inuu dhigantaan u maleynayay oo kaadida inuu dhigantaan u maleynayay laakiin markii dambe cabaar fadhiya ir moogta cabaar markuu fadhiyay iyo la soo boodo moogta alla waa iga imaatay marka waxaan sameeyey waa ku qoslay dadkii oo dhan marka soo waditay maxaa ka imaaday baa la wada moogta bas gabdhihii xitaa la turkada way qosqosleen oo dadkii oo dhan qosqosleen wax la isla wada ogyahay waa dhalinyaradii markaa raaci jiray waxay dhaheen war waa la garanayaa iska dhaafay kaadidaa ka imaan weyday marka baraaskaas sidaas u ahaa bal waayahay faaraxow asxaabtana daawanaysayaan hadal ku daaline bal idii kala baxo asxaabto ahaan oo kale talle gacanta haleedaan oo kale talle yuu qaatay markii bahalkii markuu wax yar noo soo jiro oo inta adigu 5 tilaabo karto yuu cod marka kala bilaabo marka ba asaga markuu ciyahayo waa asaga dhah maartay waa asaga dhah mugtaa marka ciihidi muusa dhihinine wuxuu yiri markuu noo soo dhawaadayba bahalku markuu xasaa wuxuu leeyahay qurr ma baqdintayday ahayd ma sidoo u ciyaayay waan garan lahay ma dhagahaygay ahaayeen bahalku wax kale ma wadnahayga sharqantiisa iga qariyay bahalku sidoo ahaa adigu bahalkii markuu noo soo dhawaay asagoo ciyaaya waa kaaqada ku hay yunta isla taago meeshaas kilida amaar mid in kamid raggeeda toosashii aan ku bixinay toosha markaan ku bixinay toosha markaas kale aan bakteeriyaash gashano aan maanta kale soo gadanay oo aan ka soo gadanay tuuladii aan ka soo tagnay ku dhaa oo meeshii jasiiradda ahayd tuulada waa la digan yahay ku dhaa dabcan waad aragtay marka aan ka soo gadanay baan wadana oo wadana dheer oo macnaha aad moodaysa markaas aan ugu talagalay xaaladda ugu talagalay mid kale waxaan kala wadanaa waan ka soo kala sheeka dhaafay baangadaan wadanaa bahaladan maartay wax lagu jarjaro oo wax lagu googooyo maartay halista rag diyaarsananahay hubkii baa idinka maqan waxaan naga maqan xabadii wax ku ridi lahayn laakiin samaana haysan waa tagnay markaan u nimid baalki markuu adigu uu intoo kale noo soo jiro iyo meesha kilida mab uga siya baalki moogta baalki intuu soo jeesto wuxuu dhahay qaaq uu dhahay moogta qaaq markuu dhahay afweyn oo gudo tooshkii marka saas kaleeta ugu baxshay tooshkii marka waxa waa ku arki waayay baalka afkiisa candhuuftiisa iyo waxbaa soo gaaray marka candhuufi waxbaa soo gaaray marka intaan afka la qaadan qaaq ana ir moogta oo adigii waa is ilowday indii waxa ka arki waaya baalki libaax soo qeylna oo qeylnaysa libaax soo qeylo kale qaaq yiri oo kale sidoo kale u la qaaq markaasaan
tooshka marka saan kale tala tooshka aan garaacay meesha baalki fiicin la waan ifaham leerki tooshka waa ifay caadi weey tooshka waxba kama qaldan waa sidiisii waa garto marka uu booday meeshaan kale oo galay wuu soo laabta hadana marka soo laabtay marka waxaan iri ma cararta ama baal ku qabta ama ku qabsada adoo haddana xaaladii way isbedesho baalkii markuu meeshii intuu soo meel agtana haddana ku soo booday iyo haddana gadaal intuu laabtay oo gadaal u xarar marka saxaad niyadda gashaniyo baqdin daraadeed inaan ka daba ordaan dana moogta baqdin daraadeed waa tahay intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkan gaaban oo aan ku wareysanaynay xaaladiisa nololeed iyo taariikhdiisa abwaan Faarax Carab Qays oo kamid ah abwaanada ku nool magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland daawade hadday tahay markii ugu horeysay ee channelkan aad aragto fadlan nagu caawi subscribe-ka like na saar wixii oraah iyo fikir aad qabtina qaybta hoose commentiga noogu dhaaf wad mahadsantihiin